magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud ayaa ku jirta xaalad cakiran kadib markii maalinkii saddexaad oo xiriir ah si toos ah halkaas uu uga qarxay dagaal qaraar oo u dhaxeeya ciidamada huwanta ah ee dawladda iyo kuwa galmudug oo isku dhinac ah iyo hoggaanka Ahlus Sunna. Warbixintan waxaan kugula wadaagi doonaa daawada khasaaraha ka dhashay dagaalka culus ee maalinkii saddexaad galay ee ka soconaya magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud iyo halka ay ciidamadu ku kala sugan yihiin. balse inta aanun guda galin fadlan like share iyo follow dheh page-kan wariye Cabduqaadir Siisi. Aynu ku bilownay dagaal culus ayaa maalinkii saddexaad ka qarxay magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud, waxaana dagaalkan uu u dhaxeeya ciidamada huwanta ah ee dawladda iyo kuwa Ahlus Sunna oo markaasi si weyn ugu dagaalamaya gacan ku haynta magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud. ciidamada Ahlus Sunna ayaa ku fara adeegaya gacan ku haynta halka loo yaqaan jaamacadda, waana goobta ugu weyn ee ay fariisimo culculus ku leeyihiin hoggaanka Ahlus Sunna, iyadoo la soo warinayo in dagaalka xooggiisa uu halkaasi ka socdo. ciidamada huwanta ah ee dawladda oo ka kooban noocyada kala duwan ee ciidan sida Haramcad, Gorgor, Danab, Nisa iyo militariga qaybaha 12aad iyo qaybta 17aad ayaa xooggooda isugu geeyay sidii ay magaalada uga saari lahaayeen xoogaga Ahlus Sunna oo saddexdii maalin ee la soo dhaafay ka dagaalamaysa magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud. ciidamada Ahlus Sunna ayaa la sheegay in ay yihiin kuwa isdhaarsaday isla markaana midkood inta uu nool yahay ay dagaalami doonaan, taasina waxa ay keeni kartaa in dagaalku uu sii dheeraado. warar aan helnay ayaa sheegaya in dad aad u tiro yar ay ku go'doonsan yihiin xaafado ku yaala isbitaalka weyn ee Sterling ee magaalada Gurceel, kuwaasi oo la meel ay cagta saaraan maadaama korkooda si weyn loogu dagaalamayo. marka aan fiirino khasaaraha ka dhashay dagaalkan, weli tiro rasmi ah lagama hayo tirada saxda ah ee ku geeriyootay dagaalkan, balse waxaa la xaqiijiyey in uu khasaaro xoog leh soo gaaray labada dhinac. meydadka iyo dhaawacyada Gurceel yaalla ayaa tiro beel ah, waxaana jira saraakiil labada dhinac ku geeriyootay dagaalkan ka soconaya magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud. magaalada Muqdisho ilaa iyo shalay iyo saakay aroortii waxaa la geeyay dhaawacyo ka tirsan ciidamada dawladda ee ku dhaawacmay dagaalkan Gurceel ka soconaya, halka ciidanka Ahlus Sunna weli qaarkood dhaawacyadooda ay ku haystaan magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud. inkastoo shalay la ogaaday in saraakiil ku dhaawacantay dagaalka oo ka tirsanayd Ahlus Sunna lagu dabiibayay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug, walow xalay xilli dambe ciidanka Danab ay kala baxeen isbitaalkii ay ku jireen saraakiishaasi, waxaana laga dejiyey magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, waxa ayna saraakiishaas dhaawacooda markaasi gacanta haatan ku haya ciidamada dawladda. ma jirto ilaa iyo hadda wax wanwaan ah oo laga dhex wada dhinacyada ku dagaalamaya magaalada Gurceel oo hakin karta dagaalka, waxaana xaaladdu ay ku sii adkaan kartaa dadka tirada yar ee magaalada ku go'doonsan, maadaama magaaladan ay markaasi dagaallo culculus martigelisay saddexdii maalin ee la soo dhaafay. waxa uuna dagaalkan noqonayaa mid ka mid ah dagaaladii ugu culcuslaa ee ka dhaca magaalada Gurceel, maadaama la sheegayo in tirada dhaawaca iyo markaasi meydadku ay yihiin kuwa tiro beel ah. Gurceel weli laguma kala bixin, waxayna xaaladdu u muuqataa mid dagaalka sii dheeraan karo maadaama labada dhinacba ay ku mitidayaan gacan ku haynta magaalada ganacsiga ku fiican ee Gurceel. ilaa iyo dhammaadka muuqaalka haddii aad ina wehelisay, fadlan like iyo share iyo comment dheh page-kan wariye Cabduqaadir Siisi. su-aasha aan saaxiibada weydiinayno ee saakayna waxa ay tahay, maxaad ku talin lahayd adigu?